iminka shalay doraad hees baa soo baxday 3 milyan oo qof bay marayaan dadka YouTube ka daawaday muxaadarad maanta tafsiir quraanka ama muxaadaro sheekh jeediyena waxa 200 oo qof inaanay eegin barbarkaas la isugu wada tuuraya heestu barbar baa la yiraahdaa heesta nas'alullah salaamata wal aafiya saasay ummadii isugu wada tuuraysa صدقيه با يجو تمانادي برادي جرجريا waxa bay reerihiina waxa laga yaabaa in kala gurigi ku noqotaan iyagoo gacmahoodii ba ilaahiin islaamihi waayo iyagoo jarjaraya tamaanadii basashi ay barbarka saay soo tuurayaan ka gidaarka ku dhacaya ka kursiga ka dhacaya ka barafka ku dhacaya war dhibaatada haysata ummadii dhibaato haysata cid allaali cid ka hadlaysaana ma jirto cid allaali cid ka sheekaynaysa ma jirto wax weeyaan qof waliba wax weeyaan arinta uu la yaabay uu la yaabay uu dhaqaaqaya kii kale arinta shaqadiisa dantiisa maaha ummadu hadaanay iska qabanin walaalayaal fawaaxishta noocaas oo kala dhibaato ay nagu imanaysa awal dadku markay dhibaato arkaan culama loo yeeri jiray wax weeyaan waa la ducayn jiray ilaahay dadka dhibta uu ka qaadi jiray imka culamadii maaha dambigii maaha dadkii maaha qofka awal marka loogu yeeray qof jingalay culamadu albaabka inta ka soo galin baa jinku carari jiray imka hadaad saddex jisba ku akhrido wax allaali wax dhaqaaqaya ma jiro مطعم كيبا حرام نقضي مشرب كيبا حرام نقضي قفكو سوى توغ بمساجد كشنت صلاه كنت كنيا dadkii way soo nacbihiin marka masaajidka laga baxo wali soo qoslaya la ismana arki karayo waxba la isuma ogola waxba la isuma quurayo musiiba ummadda haysata tabeetana barbar baa la wada noqonaysa intaas saddehi wada u dhacayaanay maartay suuq qalbiya ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsado amr bil ma'ruf ka la yimaado xumaanta dadku inay iska badbaadiyaan iska qabtaan baa muhiim ah